بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد ولي يوم مركله إذن سوب وقادنا موقعيه ما قد أركتان وأنيجي درين باسيجرة إيقا لنا ميو إذن مقضى ماي داها دبديس أما داها قداشيس waxaan u ciyaaraynaa oon u dabaaldegaynaa sanad guuro loo dabaaldego tii ugu cajiibsanayd mahmaah Soomaaliyeed ayaa tiraahda nin adduunyo ku noolow maxaa aragti ku laaban xagga ay koonfurtan waxa laga yiraahdaa ama banaadiriga baan iraahdee cimrigaaga oo raagi geel dhalaya isku tusaa labo jacaylka ku midoobay oo lamaane aadmiga intiisa kale iska xushay oo intay dadab galeen haddana calafku uu ku simi waayay heerkii iyo halkii himiladoodu ay ahayd inay geedigu ku furaan ayaan qisadooda rabnaa inaan idinla wadaagno hadal badan idinkulama wadaagayne tuduuc yar oo ka turjumaysa ayaan idin soo tabinaynaa waa dareenka saaxiibkay malaha hadalka waan walwaalay ee markaan si kooban u iraahdo hore ma u aragteen lamaane intay isguursadeen haddana kala tegay welina xusaaya jacaylkoodii aniga xaggayga ugu bay ka tahay saaxiibkay iyo dumaashiday calafkoodu uu soo idlaaday wayna kala tageen maalintay isguursadeen maalinteedii ayuu ku beegay inuu dareenkiisa iyo doorka iyo kaalinta ay ugu jirtay inuu suugaan ku cabiro anigu wakiil baan u ahay erayada marxaladda imika aan wax ku qabanayo fikirka iyo halku dhigeeda intaba isagaa leh waxba hadalyaal idinku daalin waan idin sii daynaynaa maasada si fiican noola dhuuxa wuxuu yidhi hooyadaa dooqu raacay waxaa dareensaday qalbiga daymada markaan eegay duwatoo ishii raacday ibnuhu adkaysan waa dalbashada odhaahdeeda ama dalbashada hadalkeeda ku bilaabay daandaansi dumar xeeshii weeyaane inkastoo dabuubtayda diidmo ay kaga jawaabtay soo dabacday oo yeeshay dulucdiiyo ujeedkayga darma dhigatay laabta anna degay quluubteeda daadihinnay oo dhowrnay jacayl daacadnimo keentay wax kastoo iyada daara dura ee dhib gaarsiiya anigana dubaaqayga damaq oo waxyeelle wuxuu yidhi muddo waxaan daryeel buuxa xiriirkii ku wada dayrno dib u dhacana ka maarayno dadab iyo aroos tagnay duhur 9kii agoost u hoyanay daartii riyada dad wixiina garanayay dalka iyo qurbaha joogay hambalyadana deeqsii duca miiran soo dhiib annaguna dul iyo hoosba ku dadaalnay aamiinta mahadnaq ka dabageyne ruuxba ruuxa kale daawo uga dhigay dareenkiisa dhowr jeer dalxiis aadnay daalo maalmo soo joognay annaguna intaan doolka ku maqnayn damaashaadka nalkii hooygu sii daarnaa dariskiina wada dheehay lagu diirsay guusheenna lagu dayay wanaaggeenna waanse laysu daynayne innagoo sidaa diiran iyo dabaqadaa joogna waxaa timid duruuf keentay docdan iga bannaan maanta inkastoon isdoonaynay hooyadaa qalbiga deeqday wakhti diidan baa yeelin inuu damiciisu waaro go'aan aanu diidayno balse aan doc loo dhaafayn dani keentay baa jiray qalinkii ku wada duugnay dalqad aan ka iman maanka ibnahayga soo dhaaftay shiikhiina dacalkiisa daabacay warqaddiisa degdeg labana yidhi daraad sawirkii lahaa deggan ooridaada dan guud baad wadaagtaan marna docda kale haddaan ilaah duul wada dhashi iyo
dir quraad tihiin wixii damacaygu ahaa dhaxaa waxaan dalandoolinayay dantii bay lah noqotay calafkaa darmihii soo laabay gunaanadkii wuxuu yidhi daryeel wacan dulqaad badan waxay ila doondooni lahayd duulaan iyo dad baa diiday aniguse dareensaday dumar iyada horteed inaan aqoon halkaasay ku xiran tahay dulucdii xaaraartii reedon idinla wadaagnay waxay ka soo maaxatay oo halabuurkeeda lahaa anigana ii wakiishay saaxiibkay saaxiib waxaan ku leeyahay hambalyo dee waxaan kugu hambalyeeyay haddana garan maayo oo ileen dumaashidii ismaba haysaan haddana waa adigaa u dabaaldegaya sanad guuradii ka soo wareegatay maalintii uu calafkii isku keensimay 9kii Agost 2020 oo imika ku beegan 9kii Agost 2021 waa dhambaal aad dareenkayga u taabtay iina damqay murugada oo kula qaybsanayaa intaan faaqidaya amuuraha jacaylka qiso ugub ah oo aan hortaajiray aanu soo bandhigin ayaan adiga kaamin guuriyey taana waan kaaga mahad celinayaa laba qof oo lamaano oo nolosha markaa ay weli u sii bidhaamayso oo nolosha markaa weli ay u macaan tahay oo sanad guuro dhiganaya waan arki jiray laakiin labo calafku kala irdheeyey haddana maalintoodii weli xusaya koobaad u tihiin waan idinka raali gelinayaa inaan hashkadaynayo waayo saaxiibkay waa igu qasbay inaan fideogan duubo oo waan ka diiday haddana kuma horeysay qabow yiri dee intiinay garanaysay hadalka awalba hadal badan maan aqoonin laakiin inta yaroon idinla wadaagi jiray waan sugi jiray hadda waa halhaleel waan raadinayaa marka intaan waa idinkaga cudur daaranayaa raalli ahada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intii ilaahay calaf isugu daray rabbi kuwa isku waara allah ka dhigo inta dibindaabiyada iyo daqabyada iyo deelqaafka iyo warxuma tashiilka jacaylka kula wareegayana waxaan leeyahay ilaahay idin soo hanuuniyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi